filinkeena maanta wuxuu ku bilaabanayaa gabar si farxad leh ku daawanaysay xayeysiin ayaa aad u jeclaatay kaba madow oo casri ah. Markii ay rabtay inay wacdo si ay u dalbato kabahaas, cod cabsi leh ayaa si lama filaan ah uga soo yeeray qolka. Iftiinka nalalka ayaa bilaabay inay damaan. Gabadhu waxay raacday codkaas cabsida leh waxayna tagtay armaajada kabaha. Markaas ayay aragtay kabihii oo dhulka u yaalla si isku dhex yaaca. Isla daqiiqadaas ruux dumar ah ayaa si lama filaan ah uga soo muuqatay horteeda. La yaab ayay ahayd in gabadhu aysan cabsanin, balse si degan ayay u tiri, hooyo, haddii aad intaan nala soo gaartay muuqaalka like noo saar, aan kuu sii wado sheekada filinka. Waxay noqotay in hooyadeeda ay ahayd ruuxaan. Hooyadu waxay u adeegsatay habkan si ay gabadheeda uga joojiso inay mar kale kaba iibsato. Sababta gabadhu u arki kartay ruuxaanta waxay ahayd iyada oo ahayd gabar jiniyaasha dadka ka saarta. Maalintaas qolka gargaarka degdega ah ee isbitaalka, Jaya si kama ah ayay ku ogaatay jini inuu joogo. Iyadoo aan ka fikirin, isla markiiba way daba carartay. Markii jinigii lagu soo buriyey saqafka isbitaalka, Jaya waxay adeegsatay xayndaab ay samaysay si ay ugu xirto. Kaaliyaha Jaya oo horay u sugayay ayaa si degdeg ah uga qaatay silsiladeedii. Isla markiiba jinigii ayaa galay jirka kaaliyaha. Markii Jaya ay xakamaysay xayndaabka oo jinigii uu galay, waxay hansig laabta ugu muday timo qabsigeedii. Markaas ayay awood xoog leh gashay jirka Jaya. Jinigii wuxuu uga baxay jirka hunsig sida qiiqa camal, kadibna hawada ayuu u duulay wuuna baaba'ay. Diibak waa shirkad leh koox xirfad leh oo ruuxaan saarayaal ah. Waa xafiis guryo oo si gaar ah u xalliya dhibaatooyinka guryaha jinniyada leh. Maalintaas nin ayaa halkaas u yimid si uu caawimaad u helo. Wuxuu sheegay in mar kasta oo gurigiisa cidna joogin habeenkii laga maqlo tallaabooyin ka soo yeeraya saqafka guriga. Intii Jaya ay su'aalo weydiinaysay, ninku uu gariirayay wayna ku adkaatay inuu runta sheego. Jaya isla markiiba way garatay in mulkiilaha guriga uu wax qarinayo, sidaas darteedna waxay go'aansatay inay guriga soo booqato. Jaya waxay ninka u sheegtay in haddii qofka maskaxdiisa ay ku jirto cabsi ruuxeed, xitaa dhawaaqyada caadiga ah uu qaadan karo cod jinni ah inuu yahay. Maalinta xigtay, Jaya waxay shirkadda ku wareysatay dadka oo dhan. Waxaa la ogaaday in Jaya ay raadinaysay qof ruuxaan saare ah si uu uga caawiyo badbaadinta nafta hooyadeeda. Markii hooyadeeda ay noolayd, iyaduna waxay ahayd ruux saare. Xitaa kadib markii ay dhimatay, weli waxay ku noolayd isla gurigii, iyada oo noqotay ruuxaan ilaaliyaha dhulka. Nafta diiday inay dunida ka tagto waxay ka dhigan tahay inay weli wax ka xusuusato dunida dadka. Qof caadi ah ma qaadi karin ruuxaanta hooyadeeda. Sidaas darteed, Jaya way sii wadatay raadinta qofkaas. Nasiib darro, qofna ma ka gudbin waraysigaas, balse wakhtiga Jaya wuu sii yaraanayay. Dhismayaasha shirkadda waxaa lagu waday in dib loo horumariyo. Sidaas darteed, Jaya waa inay si degdeg ah u heshaa ruuxaan saare awood badan. Kaliya markaas ayay ruuxaanta hooyadeeda xor noqon kartaa. Dhanka kale, ninkan magaciisu wuxuu ahaa Iban, wuxuuna ahaa qof dhagar qabe ah. Iban wuxuu iska dhigay nin haysta shahaado PhD oo ka socda jaamacadda Stanford, kuna takhasusay cilmi baarista tamarta si uu u khiyaaneeyo dadka taajiriinta ah. Wuxuu ka faa'iidaysan jiray guryo horay wax uga dhaceen. Marka hore, wuxuu abuuri jiray waxyaabo u eg jinniyo oo cabsi gelinaya guryaha dadka taajiriinta ah, sida iftiin marna baxa marna shidmaya ama codad yaab leh. Kadib wuxuu iska dhigi jiray shaqaale cilmi baaris ah, wuxuuna iibin jiray qalab uu ku sheegay inuu jinniyaasha kaga adkaado. Markan wuxuu khiyaaneeyey nin taajir ah oo uu lacag badan ka qaatay. Iban isagoo faraxsan ayuu gaarigiisa watay, laakiin intii uu jidka ku jiray, wuxuu si lama filaan ah ula kulmay nin lacag ku lahaa. Kadib markii ay ku tartameen wadada, Iban wuu ka baxsaday. Wuxuu lacagtii badnayd la aaday hotel 5 star ah si uu ugu raaxaysto, isagoo si degan u jiifa barkada dabaasha uu nasanayay. Markaas hoosta biyaha, gacan ayaa si tartiib ah kor ugu soo baxday. Gacantaas waxay si tartiib ah ugu soo dhawaatay cagaha Iban, laakiin isla markiiba silsilada qoortiisa ku jirtay ayaa soo saartay iftiin buluug ah, taasoo ka dhigtay gacmihii inay cabsi darteed dib u laabtaan. Iban ayaa qaylo qeyr ku soo toosay. Waxaa la ogaaday in ay ahayd riyo oo keliya. Wuxuu arkay inuu dhab ahaantii ku jiifo kursi agagaarka barkada, isla markaana silsiladu ay weli qoortiisa ku jirtay. Waxay ahayd wax uu aabbihiisa siiyey ka hor intuusan dhimanin. Aabbihiisa wuxuu uga digay inuusan weligiis iska bixinin silsiladaas. Aaska aabbihiisa iyadoo la joogo, ayeeyadiisa ayaa oyday iyadoo tiri, wiilkaygu keligiisa kama bixin dunidan. Arrintani waxay muujinaysay in wax khaldan ay jireen, laakiin Iban si dhaqso ah ayuu isu dejiyey. Wuxuuna arkay saaxiibkiisa oo daawanaya wararka guryaha ee Kuuriyada. Markaas ayuu u tagay wuxuuna ku yidhi, Kuuriyada haddii aanan lacag badan ku bixinin, marnaba guri kama iibsan karno nolosheena oo dhan. Kadib wuxuu sheegay inuu haayo hab weyn oo lacag lagu sameeyo. Iban wuxuu ogaaday inuu jiro guri dhismihiisa la joojiyey kadib markii shirkaddii dhismaha ay shiiday. Laba qof oo gurigaas horay u iibsaday ayaa ka dhacay dhismaha wayna dhinteen. Mulkiilaha hadda wuxuu ku helay guriga qiimo aad u jaban. Inkastoo gurigu dhammaystiran yahay, haddana way adkayd in la kireeyo sababtoo ah sheekooyinka jinniyada ayaa aad ugu badnaa. Xaaladdan waxay si fiican ugu habboonayd qorshaha khiyaanada ee Iban. Sidaas darteed, wuxuu mar kale iska dhigay nin PhD ka haysta jaamacadda. Wuxuuna bilaabay inuu u dhowaado xaaska mulkiilaha guriga. Maalintaas, mulkiilaha guriga iyo xaaskiisa labaduba waxay tageen dhismahaas. Waxay ballan u lahaayeen inay guriga soo eegaan, laakiin dadkii rabay inay guriga arkaan ma imaanin sababtoo ah waxay maqleen warar sheegaya in guriga uu jinni ku jiro. Mulkiilaha arrintan wuu la qabsaday. Markaas ayay xaaskiisu si degdeg ah ugu sheegtay ninkeeda in Iban uu jinniyaasha ka saari karo, laakiin ninku ma uusan rumaysan in jinni lagu burin karo tamarta. Kadib hadalkaas, ninku wuxuu aaday musqusha. Markii uu baxay, xaaskiisu waxay si lama filaan ah u dareentay wax yaab leh oo hawada ku jira. Run ahaantii, Iban iyo saaxiibkiisa waxay gurigan ku rakibeen qalab soo muujinaya jinni been ah. Waxay sugayeen in lamaanaha mulkiilaha ay dabinka ku soo dhacaan, kadibna waxay sameeyeen codad tallaabooyin iyo albaab la riixayo si ay u cabsi geliyaan. Laakiin gudaha musqusha, mulkiilaha wuxuu arkay laba cagood
oo qiiq madow ka soo baxayo. Tani dhab ahaan waxay u ekaatay mid jinni ah. Ibaan iyo saaxiibkiisa oo daawanayay kamarada ammaanka waxay arkeen shaashada kormeerka oo si lama filaan ah caddaan u noqotay. Kadibna xiriirkii wuu go'ay. Jinnigii guriga ku jiray dhab ahaantii wuu soo baxay. Mulkiilaha ayaa ka soo baxay musqusha wuxuuna arkay xaaskiisa oo hortiisa ka sii socota iyada oo aan is ogeyn. Wuxuu ka daba orday ilaa saqafka sare. Halkaas ayuu ku arkay xaaskiisa oo dul taagan bir aad u dheer kadibna hoos ugu booday. Isla daqiiqadaas mulkiilaha miyirkiisii ayuu helay. Wuxuu si yaab leh u ogaaday in qofka ku taagnaa birta uusan ahayn xaaskiisa balse uu isagu ahaa. Xaaskiisu waxay si degdeg ah uga soo qabatay dhabarka waxayna ka dejisay birta. Markaas ayay lamaanaha si dhab ah u fahmeen in gurigan uu yahay mid aad u yaab badan oo khatar ah. Isla markaas kamaradii Ibaan mar kale ayay caadi noqotay. Wax walba waxay u ekaayeen sidii inaysan waxba dhicin. Waqtigaas Ibaan wuxuu helay wicitaan ka yimid xaaska mulkiilaha. Waxay ka codsatay inay ka shaqeeyaan gurigan waan shaqo jinni saarid. Ibaan iyo saaxiibkiisa aad bay u farxeen. Ugu dambayn waxay heleen fursad ay lacag ku sameeyaan. Laakiin isla waqtigaas mulkiilaha guriga wuxuu tagay xarunta shirkadda Diibag. Wuxuu Jaaya uga sheekeeyay wixii dhacay habeenkaas. Wuxuu sheegay inuu arkay xaaskiisa oo taagan saqafka sare kadibna hoos ugu booday. Laakiin markii uu istajiyay ayuu ogaaday in qofkii ka booday dhismaha uu isagu ahaa. Markii Jaaya ay arrintaas maqashay waxay si buuxda u hubsatay in mulkiilaha la sixray ama la khiyaaneeyay. Intii ay su'aalo weydiinaysay mulkiilaha wuxuu u sheegay xog ku saabsan qofkii hore uga booday dhismaha. Qofkii hore uu iibsaday guriga waxaa khiyaanay saaxiib ka shaqeeya xafiiska guryaha. Kadib waxay ku iibsadeen gurigaas lacag aad u yar. Nasiib darro shirkaddii dhismaha ayaa khasaartay. Arrintuna halkaas ayay ka sii xumaatay. Maalgeliyaashii ayaa iyagoo ooyaya oo qaylinaya ku soo orday xafiiska. Laba qof ayaa ka booday dhismaha kana tagtay dunidan. Midkood wuxuu ahaa mulkiilaha guriga kan kalena wuxuu ahaa wakiilka guryaha. Jaaya waxay garatay in jinnigii runta ahaa uu la xiriiray labadan qof. Hadda dhibku wuxuu ahaa in la ogaado kee ka mid ah labadaas uu yahay ruuxa guriga ku jira. Jaaya waxay timid guriga lambarkiisu yahay 401 si ay baaritaan u samayso. Waqtigaas Ibaan isna goobta ayuu joogay. Markii uu arkay Jaaya isla markiiba wuu iskariyay. Ibaan wuxuu arkay Jaaya oo gubaysa qalabkeeda una adeegsanaysa awooddeeda ruuxan saarista si ay jinnigii u soo muujiso. Laakiin si lama filaan ah gacan kale ayaa soo baxday. Gacantaas waxay qabsanaysay qoorta jinnigii hore. Gacantaas milkiilaheedu wuxuu ahaa wakiilkii guryaha. Arrinta lama filaanka ah waxay noqotay in laba jinni ay jireen. Jinnigii dambe ayaana ahaa kan wax walba ka dambeeyay. Markii ay Jaaya ay ogaatay xaqiiqda waxay go'aansatay inay jinniga si buuxda uga saarto maalinta xigta. Kadibna Ibaan isna wuxuu ka tagay goobtaas. Intii uu socday si lama filaan ah ayuu ula kulmay mulkiilaha guriga iyo xaaskiisa. Mulkiilaha oo bakhayl ahaa wuxuu xaaskiisa u sheegay inuu shirkadda Diibag uu u yeeray si ay jinniga u saaraan. Waxa ugu muhiimsan waxay ahayd in shirkadda Diibag ay qaadanayso kaliya kharash macquul ah taasoo ka jaban qalabkii qaaliga ahaa ee Ibaan. Kadib wada hadal dheer lamaanaha waxay go'aansadeen inaysan iibsanin qalabkii Ibaan. Ganacsigii wuu fashilmay. Ibaan iyo saaxiibkiisa aad bay u xanaaqeen. Waxay go'aansadeen inay ogaadaan cidda ka qaadatay shaqadan. Si degdeg ah ayay u ogaadeen inay ahayd shirkadda Diibag isla markaana qofkii guriga yimid maalintaas ay ahayd Jaaya. Ibaan wuxuu u qaatay in Jaaya ay iyaduna tahay khiyaanoole sida isaga camal. Sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu baaro arrinta Jaaya. Labadoodii waxay ku kulmeen agagaarka guriga Jaaya. Waqtigaas dhowr gaari ayaa yaalay gurigeeda hortiisa. Waxaa la ogaaday inay ahaayeen dad lacag ku lahaa Ibaan. Isagoo cabsi qaba ayuu si degdeg ah u cararay. Raggaas qalafsan Jaaya waa ay iska fogaysay. Laakiin haddana waxay jabiyeen gurigeeda oo gudaha ayay u galeen. Markaas dabaqa labaad hooyadii Jaaya ayaa bilowday inay ka cadgoosato. Waxay adeegsatay awooddeeda si ay maskaxda uga lumiso raggaas. Waxay si cad ugu fiirinayeen daaqadda dabaqa labaad. Waqtigaas Ibaan wuxuu shiday alaarmi been ah oo gaari ku dhegnaa taasoo ka dhigtay raggaas inay miyir soo helaan. Markay soo tooseen si degdeg ah ayay ugu ordeen gaariyadoodii wayna baxeen. Ibaan wuxuu mar kale adeegsaday khiyaano kale. Wuxuu Jaaya u sheegay inuu yahay cilmi baare ruuxan isla markaana uu meesha yimid sababtoo ah wuxuu dareemay arrin khatar ah oo aad u xoogan. Wuxuu yiri jinni ayaa yimid meeshan saan u malaynayo. Hadalkaas si dhab ah ayuu uga tarjumayay xaaladda Jaaya ay ku jirtay waqtigaas. Laakiin Jaaya waxay sidoo kale shaaca ka qaaday in Ibaan uu yahay khiyaanoole. Habeenkaas Jaaya iyo Hangi waxay tageen goobta si ay jinniga u saaraan. Ibaan isna ma uusan deganayn sidaas darteed wuu soo raacay. Wuxuu rabay inuu indhihiisa ku arko sida Jaaya ay dadka u khiyaamayso waana sida uu isagu u maleeyay. Si kama ah ayuu u burburiyay xayndaabkii ay Jaaya iyo Hangi ay diyaariyeen. Burburkaas wuxuu ku dhacay waqtigii ugu xasaasisanaa ee jinni saarista. Arrintaas awgeed jinnigii wuxuu ka baxsaday gees kale oo ka mid ah xayndaabka. Markaas jinnigii wuxuu galay jirka Hangi. Isagoo jinnigii uu hogaaminayo Hangi wuxuu u orday saqafka sare wuxuuna isku diyaariyay inuu hoos u boodo. Jaaya waxay si degdeg ah u qabatay gacanta Hangi. Isla waqtigaas Ibaan isna wuxuu soo gaaray saqafka. Iyagoo wada kaashanaya waxay ku guuleysteen inay Hangi dib u soo jiidaan. Kadib Jaaya waxay si dhaqso ah u soo saartay timo qabsigeedii waxayna ku muday laabta Hangi. Awooddii timo qabsiga ayaa gashay jirka Jaaya. Markaas ayay dareentay oo ay aragtay wixii ku dhacay wakiilkii guryaha intii uu noolaa. Kadib markii shirkaddii dhismaha ay khasaartay wakiilkii guryaha ma uusan helin lacagtii uu maalgeliyey. Wuxuu sameeyey wax walba xitaa wuxuu aflagaadeeyey saaxiibkiisa uu ku khiyaanay inuu guriga uu iibsado. Labadoodii way murmeen oo si caro leh ayay u kala tageen. Laakiin markii iibsadihii guriga uu baxay wakiilkii guryaha waxaa galay fikir xun. Wuxuu qaatay burus weyn wuxuuna ka weeraray iibsadihii dhabarka. Wuxuu u maleeyey inuu dilay. Isagoo argagaxsan wuxuu qorsheeyey inuu ka dhigo arrinta mid u eg in iibsaduhu uu isdilay kadib markii uu khasaaro galay kadibna dhismaha ayuu ka booday. Laakiin waqtigaas iibsadihii weli ma uusan dhimanin. Markii wakiilkii guryaha uu isku dayay inuu ku
ku tuuro balakoonka, iibsadihii ayaa miyirkiisa soo helay wuxuuna qabtay gacantiisa. Sidaas ayay labadoodii hoos ugu wada dhaceen. Kadib markii Jaya ay ka saartay ruuxaantii wakiilka guryaha, waxay rabtay inay mar kale ku muddo sababtoo ah laba ruuxaan oo dulman ayaa jiray. Laakiin waqtigaas Hangi miyir ayuu soo helay. Tani waxay muujisay in Hangi uu kaliya xiray hal jini halka kan kalena uu ka baxsaday. Isla markiiba Jaya waxay madaxa u rogtay dhinac. Waxay ku aragtay muuqaal yaab leh, waana wejiga Ibaan. Jirkiisa waxaa ka baxayay qabow daran. Waxaa la ogaaday in iibsadihii guriga uu galay jirka Ibaan. Jaya si weyn ayay ula yaabtay markay ogaatay in Ibaan isna uu ruuxaan saare. Jaya waxay eegtay qalabkii jini saarista oo meel fog lagu tuuray. Laakiin waqtigaas iibsadihii ma uusan soo weerarin Jaya, taa beddelkeeda wuxuu u orday dheriga ubaxa ee barxadda yaalay wuxuuna bilaabay inuu si xoog leh u qodo dhulka. Jaya waxay ka faa'iidaysatay fursaddaas waxayna Ibaan laabta kaga mudday timo qabsigeedii. Jinnigii ayaa si aad ah u qayliyey. Ugu dambayn jinnigii wuu baaba'ay. Jaya waxay u tagtay dherigii ubaxa waxayna qoday sanduuq ku duugnaa dhulka hoostiisa. Sanduuqaas wuxuu ahaa shay uu aabbihii iibsadaha uu guriga uga tegay. Markii Ibaan uu miyir soo helay, weli cabsi ayaa ku jirtay. Wuxuu rumaysan kari waayey wixii uu indhihiisa ku arkay. Markay Jaya arrintaas maqashay, waxay si joogto ah u weydiisay Ibaan waxa uu arkay. Sababtu waxay ahayd in qof caadi ah uusan xasuusan karin wixii dhacay marka jinniga uu ka baxo. Taasi waxay Jaya ka dhigtay inay fahamto in Ibaan uusan ahayn qof caadi ah. Jinni saarkaas wuxuu si xun u dhaawacay lugta Hangi. Wuxuu u baahday nasasho 6 toddobaad ah. Caadi ahaan marka Jaya jinni saarto, waxay aragtaa qayb ka mid ah xusuusta jinnigii. Laakiin markan waxba ma aysan dareemin. Waxaa laga yaabaa in xusuustaas loo wareejiyey maskaxda Ibaan. Jaya mar walba waxay weydiinaysay Ibaan wixii uu arkay markii jinniga uu galay. Ibaan wuxuu soo xasuustay in iibsadihii guriga uu gacanta ku hayay sanduuqii uu aabbihiisa siiyey, isagoo taagan albaabka hortiisa kana labalabaynaya. Wuxuu ka baqayay inuu garaaco albaabka oo uu galo. Inkasta oo Ibaan uu xusuustaas arkay, haddana Jaya uma sheegin. Taa beddelkeeda wuxuu isagu su'aal ka keenay waxa Jaya ay ku samaysay intii uu jinniga ku jiray. Ibaan wuxuu soo xasuustay oo kaliya inuu Hangi badbaadiyey, kadibna uu miyir beelay. Markii uu soo toosay, dhulka ayuu ku dhacay. Jaya waxay Ibaan u sheegtay in isagu uu yahay qof ruuxaan saare ah. Tan iyo dhalashadiisii, Ibaan aad ayuu ugu nuglaa inay jinniyo galaan. Marka jinni la saarayo, Jaya waxay ku xirtaa jinnigii jirka wadaadka, kadibna waxay samaysaa xafladda jinni saaris ah. Maalintii shalay, Ibaan wuxuu noqday qofkii ay Jaya adeegsatay. Marka jinni uu galo wadaadka, caadi ahaan waxba ma soo xasuusto. Ibaan aad buu u baqay, wuxuuna sii waday inuu iska diido waxyaabahaas. Jaya si qabow ayay ugu sheegtay inuusan been sheegin. Jirdhiskan awgiis waa inuu yaraantiisii ku soo barbaaray jinniyo isaga galay. Jaya way saxnayd, Ibaan wax jawaab ah ma uusan hayn. Isagoo xanaaqsan ayuu ka tegay. Laakiin markuu baxay kadib, Ibaan wuxuu ogaaday in silsiladii qoortiisa aysan ku jirin. Wuxuu soo xasuustay inuu markii uu Hangi uu badbaadinayay ay silsiladda isa ka bixiyey. Markaas ayuu garwaaqsaday in silsiladdu ay weli saqafka sare saaran tahay. Si degdeg ah ayuu saaxiibkiisa ugu sheegay inuu gaariga kala wareejiyo, waxayna bilaabeen raadinta silsiladda. Markii ay heleen, Ibaan wuxuu ogaaday in silsiladii ay jabtay. Aad buu u xanaaqay, wuxuuna Jaya ku canaantay inay nasiib xumo tahay midaan. Kadib markii jinnigii si guul leh looga saaray, Jaya waxay ka caawisay mulkiilaha inuu guriga si fudud u iibiyo. Markii Jaya ay macsalaamaysay mulkiilaha, waxay aragtay raggii horay ugu qasbay inay gurigeeda ka guurto. Hadda waxay cabsi gelinayeen qoys ganacsato ah oo deriskooda ahaa. Madaxdooda ayaa soo jeestay, wuxuuna arkay Jaya oo indho cabsi leh ku soo fiirinaysa. Wuu baqay, isla markiiba wuu cararay. Ninkii madaxda ahaa wuxuu ku noqday shirkaddii, wuxuuna warbixin siiyey madaxweynihii shirkadda. Shirkadda Diibakna ma aysan ahayn meel caadi ah. Inkasta oo cadaadis badan la saaray, haddana way diideen inay ka guuraan. Intaas waxaa dheer, markii shaqaalihiisu ay u yimaadeen inay Jaya ka buriyaan, waxay sheegeen inay arkeen jinni. Hadalkaas wuxuu Hangi u arkay mid aan macquul ahayn. Wuxuu dharbaaxay madaxdoodii. Hangi wuxuu necbanaa dadka aan kartida lahayn ee mar walba jinniga marmarsiiyo ka dhigta. Wuxuu yidhi, haddii shaqaaluhu awoodi waayaan, aniga ayaa si toos ah u xalinaya arrintan. Jaya iyo shaqaalaheedu waxay soo hadal qaadeen Ibaan. Jaya waxay mar walba ka fikiraysay awoodda ruuxeed ee Ibaan. Maalintaas, Ibaan ma uusan helin oo keliya xusuustii ugu dambaysay ee jinnigii, balse sidoo kale ma uusan muujin wax cabsi ah markii Jaya ay jinniga saaraysay. Markay taas aragtay, Jaya waxay istiri, malaha Ibaan waa qof awood badan. Laakiin haddii ay sidaas tahay, maxaa u diiday inuu ka caawiyo inay ruuxaanta hooyadeeda xorayso? Jaya waxay bilowday inay ka qoomamayso inaysan Ibaan dhinaceeda u soo jiidanin. Dhanka Ibaan isaguna wuu wareersanaa. Wuxuu si joogto ah uga fikirayay xusuusta la xiriirta iibsadihii guriga. Waxaa caddaatay in maalintii la dilay iibsadaha uu aaday guriga aabbihiisa. Iibsaduhu wuxuu rabay inuu sanduuqa uu siiyo aabbihiisa, balse wicitaan ayuu ka helay wakiilkii guryaha. Wakiilku wuxuu sheegay inuu rabay inuu guriga gubo kadibna isaga iyo gurigaba meesha ay ka baxaan. Iibsadihii oo dabeecad fiican lahaa ayaa taleefanka ku damiyey, wuxuuna si degdeg ah ugu orday saqafka sare. Wuxuu rabay inuu joojiyo wakiilka guryaha kana hortago inuu isdilo. Sanduuqii uu rabay inuu siiyo aabbihiisa lama siinin. Ibaan wuxuu raacay xusuusta iibsadaha, wuxuuna mar kale aaday guriga aabbaha iibsadaha ahaa. Markii uu miyir soo helay, Ibaan wuxuu ogaaday inuu horay u taagnaa guriga hortiisa. Aabbihii wuxuu bannaanka joogay isagoo sigaar cabaya. Wuxuu u muuqday mid aad u murugaysan sababtoo ah wiilkiisii ayuu waayey. Arrintani waxay Ibaan soo xusuusisay wixii isaga ku dhacay. Sanadkii ay qaraabadiisu dhinteen, keligiis ayuu ku haray dunida. Markaas ayuu dareemay in isaga iyo aabbahaasi ay leeyihiin nasiib isku mid ah. Jaya iyo shaqaalaheedu waxay bilaabeen inay baaraan xogta Ibaan. Laakiin magacan marka la eego, waxay ogaadeen in uusan ahayn qofkii saxda ahaa. Jaya waxay furtay sanduuqii uu iibsaduhu rabay inuu siiyo aabbihiisa. Isla markiiba ayay fahamtay meesha uu Ibaan u socdo. Sababtu waxay ahayd, marka jinni uu galo qof
qofkaasi wuxuu qaataa dhaqan ama dareen la mid ah kan jinnigii. Sidaas darteed, Jaya waxay tagtay albaabka guriga aabbaha iibsadaha. Waxay aabbaha weydiisay haddii maalmahan ay jireen waxyaabo aan caadi ahayn. Tusaale ahaan, in qof u eg wiilkiisa uu u soo dhowaaday guriga. Isla markaasna waxay u sheegtay in wiilkiisa uusan isagu isdilin. Kadib hadalkaas, Jaya waxay aabbaha u dhiibtay sanduuqii. Gudaha sanduuqa waxaa ku jiray 2 ookiyaalo oo cusub. Horey, wiilku wuxuu u arkay aabbihiisa oo weli xiran ookiyaalihii duuga ahaa. Wuxuu ku canaantay aabbihiisa, wuxuuna u sheegay inuu si degdeg ah u beddelo ookiyaalaha cusub. Run ahaantii, iibsaduhu marnaba ma uusan doonayn inuu nolosha uu ka tago. Warqadda ku jirtay sanduuqa, wiilku wuxuu ku qoray rajooyinkiisa. Wuxuu sheegay inuu rabay inuu noloshiisa dib u bilaabo, isla markaana lacag badan u shaqeeyo si uu aabbihiisa u caawiyo. Markii aabbihii uu akhriyay warqadda wiilkiisa, wuu ooyay si xooggan. Ivan wuxuu dhinac uga dhuuntay isagoo wax walba daawanaya. Markuu arkay in qaladkii iyo isfahmi waagii u dhexeeyay aabbaha iyo wiilka la xaliyay, ayuu soo jeestay si uu baxo. Laakiin Ivan wuxuu ogaaday in Jaya ay dhabarkiisa taagan tahay. Isagoo naxsan, si degdeg ah ayuu gaarigiisa u galay una cararay. Jaya way daba orday, balse Ivan wuu ka baxsaday. Kadib, Ivan iyo saaxiibkiisa waxay bilaabeen ganacsi cusub. Waxay iska dhigeen dad aysan ahayn oo qolyaanadu waa hawshooda, waxayna tageen dhismo si ay u cunaan cunto. Iyagoo cunaya ayay daawanayeen dadka cuntooyinka bixinaya. Inaya waxay ahayd agaasimaha machadka farshaxanka ugu weyn dalka. Maalmahan, Inaya waxay rabtay inay iibiso xaruntii hore ee machadka farshaxanka. Laakiin warar ayaa sheegaya in meesha ay jinni leedahay awgeeda ma aysan awoodin inay iibiso. Waxaa kaloo jiray xan sheegaysa in Inaya ay sumaysay ninkeeda. Ivan saaxiibkiisa markuu arkay sida ay Inaya u tahay haweeney adag oo aad xooggan, waxay ka walwaleen in Inaya aysan rumaysanayn jinniyada. Laakiin ma jirin wax degdeg ah, sababtoo ah Ivan wuxuu lahaa qorshe kale. Xaaladan wuxuu baaray waqti hore. Machadkan farshaxanka marka laga reebo Inaya, waxaa kaloo joogay maamule sare oo ahaa walaalka ninkeedii. Ivan wuxuu qiyaasay in wararka jinniyada uu faafiyey walaalkan yar. Ujeedadiisu waxay ahayd in machadka farshaxanka uu khasaaro weyn galo, kadibna Inaya lagu qasbo inay xilka ka degto, isaguna uu la wareego machadka. Sidaas darteed, qorshaha Ivan wuxuu ahaa inuu helo caddayn muujinaysa in wararka jinniyada uu faafiyey walaalkan. Marka ay helaan runtaas, 2 arrimood midkood way samayn karaan. Ama walaalka inay ugu hanjabayaan, ama caddaynta ayay u gudbinayaan Inaya. Labada xaaladoodba waxay ka heli karaan lacag aad u badan. Dhanka kale, meel kale, nin guryo iibiya oo la yiraahdo Bonga ayaa lamaane u waday inay guri soo eegaan. Bilowgii, lamaanuhu aad bay ugu qanceen guriga ilaa ay gaareen jaranjarooyinka. Saaxiibka wiilka ah wuxuu u maleeyay inuu maqlay cod ka imaanaya dabaqa labaad. Bonga wuxuu u sharxay in Rinjiile uu ku nool yahay dabaqa labaad. Wiilkii wuu degay, markaas ayuu kor u baxay. Laakiin markuu wax yar socday, wuxuu dareemay ur aad u xun. Bonga isna wuu maqlay, wuxuuna aaday qolka uu farshaxanistuhu deganaa si uu soo eego. Qolku aad buu u madowaa, wax walbana way isku dhex yaacsanaayeen. Markaas ayuu Bonga arkay farshaxanistihii oo dhulka jiifa oo aan dhaqaaqayn. Habeenkii, Jaya ayaa timid gurigaas. Waxay dareentay joogitaanka ruuxaan. Ruuxaantii wuxuu Jaya ku soo jiitay saqafka sare, kadibna si degdeg ah ayuu ugu cararay qolka farshaxanistaha. Jaya waxay fahamtay in markan uu yahay ruux dulman ama ruux si xaq darro ah loo dilay. Waxaa suuragal ah in lagu dilay meel kale, sidaas darteedna mararka qaar ayuu ku soo noqon jiray qolkaas. Muuqaalka haddaad ka heshay like saar, haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka subscribe dheh, gambaleelka furo si aad u hesho muuqaaladayda xiga. Mahadsanid.